walaalnimo iyo wanaag weeyaan naadu fiican. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم كسود وهذا شفيع فشيال halkan naga daawanaysaana waa Shafiic Official fadlan haday tahay marka ugu horeysa channelka soo booqatay inoo subscribe gare siina share gare videoga ku soo dhawaada clip yar kooban oo aan doonayna reaction ka bixiyo xageebu ku dambeeyay dhagixii weynaa ee la lahaa ku soo dhacaya koomkan ku noolahay ama adduunyada ay ku soo dhacaya bal clip ka yar baan doonayay inaan eegno iyo xaq ku dambeeyay iyadoo la og yahay in bariyahan u dambeysay social media la saddex mariyay dhagaxa la sheegay leeyahay uu ku soo beegan yahay dhulka iyadoo dad badan ay ka walwalisanaayeen oo ay dhab u qaateenba bariyahan ka hor dhicina aan eegno maalmihii ugu dambeeyay waxaa badatay hadalhaynta dhagax weyn oo la sheegay inuu dhulka ku soo dhacayo waxaa arrintan si weyn u hadalhayay saxaafadda dunida iyo hay'adaha ku shaqada leh sahaminta hawada sare kaasoo balliciisa lagu sheegay 4 kiiloomitir lana sheegay inuu duqeyn doono dhulka dhamaadka bishan Abriil sida ay sheegtay hay'adda sahaminta hawada sare ee Mareykanka ee loo yaqaano NASA sida uu sheegay wariyuhu haatan anigu waan bariyihii arrintan ay cusbayd oo hay'adda ay sheegtay iyaduna in hay'addaas ay sheegtay in dhagaxaasi ku soo beegan yahay dhulka laakiin ma oran hay'addaasi dhulku ayuu ku dhacayaa ama dhulku ku soo dhacayaa ma oran laakiin waxay tiri wuxuu u dhow yahay dhulka marka balan si wadno sidoo kale waxa ka hadlay culimada dalka ayaa dhagaxan iyo arrimahan ka hadlay daawasho wanaagsan haddaba culimada Somaliland ayaa arintani ka hadashay waxaana khudbadii jimcaha kaga hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Dheere haddaba sheekha oo arintani ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa aad ugu badan social media iyo baraha bulshadu isugu timaado ayaamahan dambe in markay balaayo dhacdaba qaar baa balaayo kala abuura waxaan dhagax weyn baa soo socda oo soo wilanaya 15 Ramadaan buu ku soo beegan yahay dadku badanaa social media dhagax weyn baa dhulka ku soo dhacaya musiibadii corona ba dhagaxaas ka daran dadku aad bay u cabanayeen suuq sheegay qaar wadaada ay ku sheegayaan oo macmalana way sameeyeen oo ilaa waa la weydiiyay rasuul xadiis been oo meel alla meel ku qoray jirin ayuu sameystay nabiga 15 Ramadaan haday jumco ku beeganto oo dhawaaq maqashaan shawaal iyo dilqicid iyo dilxijay balaayo dhacaysa nabi maxamed uu ka dahiran yahay inuu sida ilaa sallallahu alayhi wasallam wa xadiis makdhub ah oo beena عبد الله بن مسعود باوريه بيليدي حديث كيوان باري وحديث مكذوب موضوع ورسولك لغا بين ابورتي عليه الصلاه والسلام وروح اسوس عندنا موغا الهي با كليغي قيبكوك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الهي كليغي بو قيبكوغي عندنا موجين سبحانه وتعالى marka dadka yaan lagu hawaarun ilaahi waa og wixii qayba wax la wixii aan bilaadanku aanay ogaan karin gaaladan iyo waxyaabahan kale waxa la waxay dareereen jiraan waxay saadaaliyaan mooyaan oo yiraahdaan ma laga yaabo saasi u dhici karta mooyaan waxay sheegi karaan oo dhab oo xaqiiqo jiri kara ma jiro ama wax iyagu ballan qaadi karaan oo oran karaan waxaasa dhici doona ama waxaasa la heli karaa hadii dadku bilaadanku ay sheegayaan waxa dhacaya wax walba uu sheegi lahayn marka aqalgal maaha mana dhici doonto mana dhici kartaba in wax soo socda la sheego qeybka ilaahay baa og waxa soo socda iyo wax dhulka ku dhici doona iyo wax samada ka soo dhici doona wax walba ilaahay baa og marka balaani si wadno sheekh wareerin qaarkood waxay uga jeedaan hadiya jeeral marka masaa'ibta la unka iyo beenaha sababa keenta qaar baa laga yaabaa inay isleeyihiin dadku guryaha ku jiraan oo dhagaxa soo dhacaya iyo kugu dhici mid walba shalay guriga ka gal ya waxa rasuulka yiri ya waxa weeye gurihiina ku jiro marka soo bixina marka dhawaaqa maqashaan sujuud halay sujuud la dhac gurigiina jooga sujuuda subhanallahi alazim hada kadib
haddii talada dawladdu tahay gurigaaga joogdee joog oo badbaadada ku xidhan tahay laakiin nebiga ha ka been abuuranin isbadbaadi nebigana ha ka been abuur markii ugu horreysaan maqlo dee run umaan qaadan waayo iska beenbeen marka imikana waaba caddaatay inay been tahay sida la sheegay cilmi baadhis lagu sameeyeyna hay-adda iyadu waxay sheegtay in dhagaxaasi uu dhulka sidii halkii dhagaxaasi uu soo dhow yahay dhulka laakiin aanu dhulka ku dhacayn oo aanu dhulka kusoo dhacayn saasay xaqiijiyeen marka wixii dee inaga cilmi badan ama aynan maskaxdeenu qaadin inaynu ka sheekayno waxa in la faafiyo ma habboona marka aad baan idiin salaamayaa subscribe inoo saara dad hore noola joogtana aad baad u mahadsan tahay commentiga noo reeb fariintaada iyo fikradaaduna waa noo muhiim aad baad u mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa